golaha wakiilada Somaliland ee la doortay 2005 golahan ayaa joogay muddo dhan 15 sano taas oo keentay dib u dhacyo badan oo sababeen murano soo kala dhexgalay asxaabta qaranka kuwaas oo ku yimid qabsoomida doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka daba xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa sheegtay inay qabsoomi doonto 13 Disembar sanadkan ee guda jirnay 2019 golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta ansixiyay xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka Somaliland oo la weysan ku jirin xubintii ka socotay xisbiga mucaaradka ee wadani إلا سعيو عبد الرشيد محمود علي كعدها عبد الرشيد محمود علي وحا أقولادي كنت الحليبان صدح يطبع الحليبان واد جدي الحليبان وكاها مصري قدامي وموعضين سلاسو أنسح فيها كلتوم حسن عبدي شنية كنت الحليبان باسعيي سيدين وادينين هل حلبا waa مسجدومي وموعدين sidaas ay ansax ku tahay daayir jaamac xillibaanada oo kale gacanta tahay afar xilliba waa diiday laba waa ka aamusay gudoomiye muucdayn sidaas waa ansax ku yahay konton iyo sideed xillibaan baa oggolaaday hal xillibaan waa diiday shan waa ka aamusay gudoomiye muucdayn xasan yuusuf tacaala sidaas waa ansax ku yahay cabdiraxmaan maxamed xood konton iyo sideed baa siciyay ciidamada diidin lix waa aamusay gudoomiye muucdayn sidaas waa ansax labada xisbi mucaarid ee Somaliland ayaa iyaguna qaraarkooda ku aaday komishanka cusub ee maanta ay ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland qodobo ka soo saaray maanta wixii dhacay waa la wada socoteen in baarlamaankii saylad laga dhigay ciidamo la dul dhigay si qasab oo jujuub ah lagu meel mariyay xubno aan dariiq sharci ku iman وقفك رسمي لوضع حسبي المعارض الله حسبي المعارض وعدي ودني وكوادن كوميشن كي ساكا سلاك شوكا الأمريين كرا وكيل الصوماليلاند وقرروا وحا آمنوا شعب الصوماليلاند وصرفت عليه وعشو شيرينا أما وكحون إمانان كي جاد السعود كاد مرادية الصوماليلاند وها متكسر ليسن دستور كاس لمركانا بالشدة الصوماليلاند وصومر في تاريخ دير ويكون بحضي وقتي يانتي ومريد بقى si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo ku fadhida hal cod iyo hal qof in xukuumadda kulmiye ay godweer ku riday gacantoodana ku gowracday sidaa daraaddeed waxay labada xisbi mucaarad ee u ciidiya wadani caddaynaya in komishankii doorashooyinka qaranka ee la sugayey laga duway shuruucda dalka iyo shuruudihii uu xeerku u dhigay xulista iyo ansixinta xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka taas oo meesha ka saartay dhexdhexaadnimadii iyo garsoorkii ay xisbiyada ugu xaqsooyi lahaayeen haddaba kadib markii ay labada xisbi u caddaatay in xukuumadda kulmiye ay baalmartay heshiiskii saddexda xisbi qaran ku galeen madaxtooyada ee beesha caalamkuna ku dhex joogtay islamarkaana ay caddaatay in golihii wakiilada laga dhigay saylad islamarkaana hantidii ummadda loo adeegsaday danaha xisbiga talada haya ee kulmiye markii labada xisbi mucaarad ku qanceen in madaxweynuhu uu burburiyey doorashooyinkii iyo dimuqraadiyaddii dalkan ka hana qaaday ee Somaliland ku soo caanamaashay isla markaana u cadaystay nidaamka talisnimo waxay labada xisbi qaadaceen wada shaqaynta xubnaha lagu sheegay komishanka ee lagu keenay sifada jujuubka kaasoo loo maray dariiq sharciga baalmarsan ugu dambayn waxay labada xisbi ku baaqayaan shir wada tashi oo lagaga arsanayo xaaladda uu dalku marayo haddaba ansixinta maanta ee komishanka cusub ayaa waxaa isweydiinteeda leh khilaaf ka dhalan kara amaba sabab u noqon karta in muddo kordhin dambe ay u sii ahaato golayaasha wakiilada iyo deegaanka waa Maxamed Bedri Maxamuud Somali Television caalamiga Star Hargeysa